xafle ya saaxiibayaal guud ahaan istiraatiijiyadda Law and Order oo ah istiraatiijiyadan anigu ku magacaabay inta istiraatiijiyadoodan arkay istiraatiijiyadda ugu fiican suuqa forex trading oo aad waxa weeye profitable trader ku noqon karto isku filnaan karto istiraatiijiyad kale aadan u baahanayn wax kale oo aad adeegsatid si aad suuqan uga shaqaysatidna aadan u baahanayn inaan muuqaaladeedii idin soo gaarsiiyey oo dhammaystiran shanta tiir ee waaweynna qodob aan u dul istaagnay waxaan caawa marka ka hadlayaa entry model ama scenario-yinka aan entry-ga u qaadano scenario ka mid ah tusaale ahaan suuq markuu u socdo uptrend u socdo oo uu kor u socdo oo uu samaysanayo lower low iyo lower highs uu samaysanayo waxaynu ka raadin jirnay entry modelkeena koowaad oo scenario 1 inoo noqonaya waxaynu ka raadin jirnay inuu suuqu inoo samaysto pullback ama counter trend 15 minute ah kadibna zone-keena ugu sokeeya aynu ka dhisno trade-keena inaga oo raadinayna markaas liquidity-gii iyo counter trend break-gii iyo zone inuu entry-ga suuqu inaga siiyo iyo waxyaalahaas oo dhan scenario-da noocaasi waxay ahayd scenario 1 wax yar haddaan dulmar ku sameeyo scenario 1 ama scenario-da koowaad ee aan waxa weeye trade-ka ku dhisno tusaale ahaan marketkani waa market u socda ama waa suuq u socda uptrend ama kor u socda weeye waxaan nidhi suuq kastoo kor u socda waxaan ka raadinaa fursad buy ah suuq kastoo kor u socda waxaan ka raadinaa fursad buy ah fursadda buygaasee uga raadinaa scenario 1 downtrend inay tahay iyo uptrend inay tahay simply waxaa ka ogaanaysaa time frameska waaweyn oo ugu yaryahay 1 hour iyo 2 hour anigu inta badan waxaan adeegsadaa 2 hour baan adeegsadaa marka aan scenario 1 trade diyaarinayo scenario walba diyaarinaysidna mar walba waxa ugu muhiimsan oo aad ka soo bilaabaysaa inaad trade-ka higher time frame marka ugu horeysa ku dhistid suuqaaga trade-kan marka scenario 1 marka aan suuqa u diyaarinayno inaan fursad scenario 1 ka qaadano waa inuu higher time frame-ka 1 hour-ka ama 2 hour-ka inaga suuqu ka jihaysan yahay oo ama kor u socdaa ama hoos u socdaa waaye suuqu marka uu higher high iyo higher low samaysanayo halkaana uu marayo for example zone-keena ugu sokeeya oo suuqu reaction-ka ka samayn karaa waa halkaas weeye waa halkaas weeye waaye zone-keena ugu sokeeya oo suuqu fursadda ka samaysan karo waa kaas zone-keena ugu horeeya oo suuqu fursadda ka dhalinayo for example waa kaas waaye suuqu marka zone-ka nidaam noocee ah buu ku imanayaa zone-ka nidaam noocee ah ayuu ku imanayaa nidaamka uu ku imanayo wuxuu ku soo soconayaa 15 minute counter trend buu inoo samaynayaa ama trend correction ama pullback ama nasashada aynu ku tilmaamaynay oo 15 minute ah ayuu inoo samaynayaa waxaan rabaa inaan isugu kin xiro si aan u gaaro meeshaan u socday waaye suuqu wuxuu ku imanayaa entry-geena 15 minute counter trend ayuu inoogu imanayaa waaye qodobadaan oo dhan haddii aanan fahansanayn muuqaaladii ka horreeyey ku laabo mid u soo daawo kulli mid walba muuqaal baan ka duubay oo trendiga muuqaal baan ka duubay zone muuqaal baan ka duubay counter trendka muuqaal baan ka duubay liquidity iyo manipulation dhammaantood muuqaal baan ka duubay si fiicanna waa u kor istaagay istiraatiijiyadan haddii aad tahay qof cusub oo raba inuu forex bilaabo
iyo haddii aad tahay qof hore forex isugu jirayba labadaba way ku anfacaysaa waxaynuna u trade garaynaynaa oo ku salaysan tahay conceptigan aan ku trade garayno qaabka ay u trade gareeyaan institutional traderska ama dadka suuqan maamulo ee hantida badan gashada tusaale ahaan bangiyada waaweyn ee suuqan lacagaha ka sameeya oo kale qaabka ay u fikiraan ama iyagu u trade gareeyaan ayay istaraatiijiyadani ku salaysan tahay guud ahaan waayo counter trend markuu inoo samaysmo ama bullback ama suuqu nasasho inoo samaysto nasashadu dee nidaam waxa weeye iyadoo suuqu hal mar ordaayo iman maayo intrigaaga mar walba suuqu waa kii lower low iyo lower high ku yimaada intrigaaga haddii fursadda aa qaadanaysaa fursad sel ay tahayna waa kii ku yimaada higher high iyo higher low intrigaaga counter trendku saas wey waayo counter trendkan muxuu xambaarsan yahay guud ahaan marka laga yimaado in higher time frame trendigaagu uu ku jihaysan yahay oo bullish uu ku yahay oo fursadda suuqaana ka raadinaysaa ay ku tahay fursad bay ah tab cagsigeeda counter trendku conceptigu xambaarsan yahay maxay tahay micnaheedu waxa weeye marka hoos loo dego oo 15 minute time frameka loo dego suuqani wuxuu ku socdaa hoos buu ku socdaa oo lower low iyo lower high buu samaysan karaa waayo lower low iyo lower high ayuu samaysan karaa waayo innaga marka suuqa oo lower low lower high gaa samaysanayo oo hoos u jihaysan miyaan fursadda bayga halkaa ka fulinaynaa waa maya waxaan doonaynaa 15 minute counter trendka in la jebiyo oo inagii manipulationka qaadanaynayo in liquidity-ga lagu soo jebiyo dhaqaaqi liquidity-gana jebiyana lagu jebiyo ama counter trend break lagu sameeyo kadibna intrigaaga lagu soo laabtaa fursadda qaadanaysa maxay ka dhigan tahay marka in counter trendkaaga lagu jebiyo waxay ka dhigan tahay in suuqan hoos u socda uu la jihan noqdo suuq higher time frame biaskaaga aa suuqa u jihaysay higher time frame biaskaaga iyo fursaddan counter trendka hoos u jeeda ee ka soo horjeeda trendigii hore ee kor u socday waa in lagaa jebiyo iyada marka lagaa jebiyo markaas waxaa leedahay waxa isu kay waafaqay higher time frame biaskaygii oo bullish igu socday iyo lower time frameka oo counter trendka iga soo horjeeday ee hoos u socdayna isagiina waa layga jebiyayo hadda suuqu buy buu u jihaysan yahay intaa keliya kuma qaadanaysidee liquidity-gii baa waa inuu kuu dhacaa liquidity meesha jiro waa inuu zone uu suuqu kuu tago zone waa soo sharaxnay muhiimadda uu leeyahay nidaamyada zoneka innaga weliba aan ku soo helo golden zoneka loo yaqaano fibka ayaan isticmaalnaa golden zone marka waxaa noo ah meeshaa 0.75 ka ah meeshaa 0.75 ka hadday zone inoo ku beeganto suuqu zoneka ay ku yimaado liquidity-gaagi lagu jebiyo counter trend break kuu dhaco dee ka labalabayn maysid fursadaada inaad qaadatid maxaa sugaysaa marka halkaas suuqu marayo in counter trend break kuu dhaco lagugu soo laabto intrigaagii markuu lagugu soo laabto maxaa sugaysaa inaad fursaddii aad ka faa'iidaysan lahayd oo impulsive-ka ahayd inaad qaadatid ayaa sugaysaa oo halkaasaad suuqa bay uga gelaysaa waaye waa scenario 1 marar badan waxaa dhacda marka tusaale ahaan higher time frame biaskaagu sidoo kale wuxuu kuu ahaa buy ayuu kuu ahaa waa scenario 2 qodobkan raba inaan hadda sharaxo waaye counter trendkaagii baa kuu soo laabtay aad rabtay inaad fursadda ka qaadatid fursadda ka dhistid counter trendku muxuu kugu soo laabtay intrigaagii ayuu kugu soo laabtay oo halkanaa zonekii aad suuqa rabtay inaad fursadda ka fulisid ku ahayd counter trendkaagii marka uu kuu soo laabtay innaga maxaan sugnaa markaan fursadda scenario 1 ka dhisayno waxaan sugnaa in la ii jebiyo tusaale ahaan halkan way liquidity-gaygu halkaas ugu beegan tahay example halkaas liquidity baa ii ah liquidity-gii waa la ii jebiyey
liquidity marka lagu jabiyo dhaqaaqii liquidity jabiyana waa lagu jabiyay si kale hadii aanu dhigno counter trendkaagi waa lagu jabiyay maxaa sugaysaa marka counter trendka lagu jabiyo ma halkaas fursad ka qaadanaysaa maya waxa sugaysaa in lagugu soo laabto intrigaaga in lagugu soo laabto oo suuqu meeshii hore u dambeysay oo ka dhaqaaqay in lagugu soo laabtaa sugaysaa way scenario 2 maxaa dhici kara marka scenario 2 maxaa dhici kara scenario 2 maxaa dhici kara marka scenario 2 waxa dhici kara iyadana waxay la mid ahay trade-kii hore inta hore oo dhan bay kala mid ahayd oo halka waxa ku yaalay liquidity-gaagi baa ku yaalay tan oo iyadoo laftigeeda waa low liquidity halkan liquidity ku yaalay liquidity waa lagu soo jabiyay waaye liquidity waa lagu soo jabiyay maxaa ka dhiman marka waxa rabtaa counter trend break in lagu sameeyo oo dhaqaaqa liquidity jabiyeen isagana la jabiyo oo saddexdii dhaqaaqa manipulation kan ku dhameystirmaan baa sugaysa waaye dhaqaaqa liquidity jabiyeen waa lagu jabiyay waaye waxa dhici karta marka iyadoo aan lagu soo laaban meeshii aad intriga rabtay inaad ka fulisid oo fursadda ka qaadatid in suuqu 15 minute trend up asii samaysto inuu 15 minute trend up asii samaysto oo kor u sii socdo baa dhici karta markan maxaa la sameeyay hal dhaqaaq baa counter trendkaaga lagu jabiyay kadibna intrigaaga lagu soo laabtay halkana maxaa la sameeyay laba dhaqaaq baa counter trendkaaga lagu jabiyay markay sidaas markay dhacdo marka maxaa sameynaysaa fursadaada halkan aad ka dhisaysaa oo markii hore zone-kana fursadda ka sugaysay hadda zone-kana ka sugaysaa waa ila fahanteen Soomaa scenario 1 iyo scenario 2 waxay ku kala duwan yihiin zone-ka markii hore fursadda aad ka dhisaysay scenario 1ka waxay ahayd halkan ay ahayd oo zone-kaagii hore oo counter trend ku yimi ayay ahayd waa haddii hal dhaqaaq lagu jabiyo counter trendkaaga iyadoo aan dhaqaaq labaad lagu sii darin lagugu soo laabto laakiin scenario 2 suuqu muxuu samayn karaa adigu shuruucdaada baa ku xukumaysa shuruucda istiraatiijiyadaada baa ku xukumaysa laakiin suuqa adigu ma xukuntid wuxuu rabo samayn karaa waxaan rabnaa marka si kasta oo suuq u sameeyo inaan ula dhilgaraynaa rabnaa way muxuu sameeyay dhaqaaq baa lagu jabiyay dhaqaaqan halkan ka laabtay waxa ka sugaysay adigu halkan ka sugaysay oo fursadda in halka ka qaadatid barti ma sameeyna suuqii impulsive kale sii samaystay oo wuxuu abuuray 15 minute up trend ayuu bilaabay oo suuqu waa jihaysmay haddii masaxanahay haddii suuqu intuu halka fursadda ka sugo masaxana oo halka suuqu markuu igu soo noqdo aan iraahdo fursadda ambay baan u qaadanayaa masaxana haddaan dhaho fursadda ambay baan u qaadanayaa suuq laba dhaqaaq counter trendka ku jabiyay counter trendiga suuq laba dhaqaaq ku jabiyay oo samaystay masaxanahay inaan halkan ka bay garayo maya masaxni sababtoo ah suuqan waa down trend waa suuq hoos u jeeda bayba ma ahaba maxaa i tusinaya inuu suuqani inuusan bay ahayn dee trendi 15 minute abaa lagu soo jabiyey oo waxaan halkan loo soo jabiyey waa higher low way higher lowgan haddii la soo jabiyo micnaheedu waxa weeye suuqa hoos wuu kaa soo horjeedaa order flow wuu kaa soo horjeedaa oo against market baa tahay suuqa waa ka soo horjeedaa jiha aanu suuqa u socon ayaa ku khasbaysaa oo rabtaa inuu aado way micnaheedu ya inagu halka maxaan doonaynay counter trend break hay noo dhaco micnaha iyo danta guud aynu ka lahayn maxay ahayd waxay ahayd trendigan hoos u jeeda hal la jabiyo si aan dee fursad bay u qaato ilaa trendigan haddii aan la jabin dee suuqu qulqulkiisa hoos buu jeedaa weye micnaheedu haddiise laguu jabiyo maxaa weeye jihadaada guud iyo jihada hadda counter trendka laguu jabiyey way iswaafaqsan yihiin oo fursadda baygaa waa fulin kartaa wey laakiin haddii laba dhaqaaq lagu jabiyo counter trendkaaga oo labadii dhaqaaq suuqii wuxuu samaystay higher low buu samaystay waa 15 minute trend waa la soo jabiyey oo higher lowgaaga waa la soo jabiyey
maxay la micno tahay waxay la micno tahay suuqii kor u socday waa la soo jabiyo selleriska awood badan weeye marka haddii marka sellerisku awood badan yihiin oon halkaa suuqa ka galo ma saxanahay mise waa khaldanahay waa khaldanahay ma guulaysan karaa fursadda aan ku guulaysan karaa aad bay u yartahay sababtoo against market baan ahayo suuq iga soo horjeeda oo sel ah ya oo la soo jabiyey dhammaanadii halka inoo yaallay ama zoonankii halka inoo yaallay iyo trendigii 15 minutka ahaa ee kor u soo jabiyey la soo jabiyey baan anu bay u galay waxba kuma aha marka in stop losska laga garaaco in stop losska laga garaaco micnaha ku jira guud ahaan horta in trendigu kaa jabo waa kaas wey waaye suuqan marka inaga inooma taalo inaan ka raadino inaan ka galno halkan fursad ka raadino sababtoo ah mar kasta inaga waxaan dhowraynaa qawaaniinteenna oo trendigaani haddii uu jabo waxba meesha ima yaallaan suuqu waa sellerska iga awood badan waxaan u baahanahay dhaqaaqan suuqa jabiyey ama dhaqaaqyadan dambe ee jabiyey 15 minute uptrendkaygan cusub in iyagana la soo jabiyaan u baahanahay waaye scenario 2 marka micnaheedu waxa weeye haddii suuqu uusan hal dhaqaaq inta ku jabiyo counter trendkaaga uunan isla markaba kugu soo laaban intrigaaga ee uu laba dhaqaaq ku jabiyo oo higher high iyo higher low samaysto fursadayda waxaan ka dhisayaa soonka cusub ee suuqu ii abuuro oo kan ah soonka cusub ee suuqu ii abuuro oo kan ah ayaan fursadayda ka dhisayaa see uga dhisayaa marka markii hore biaska suuqa directional biaska suuqa waxaa kusoo eegatay 1 hour ama 2 hour soo ma oo aynu trendigan guud ee suuqa kusoo dhisnay waaye counter trendkaagana maxaa ku fiirsatay 15 minute baa ku fiirsatay soo ma markan directional biaskaagii baa waxay ku noqonayaan 15 minute trendigan hadda abuurmay ee 15 minute ka 15 minute ka trendiga hadda abuurmay ee 15 minute ka ayaa wuxuu kugu noqonayaa directional biaskaagii guud ee suuqa waaye counter trendka cusub ee samaysma 5 minute baa isaga ka fiirsanaysaa labada time ee isla isticmaalaysa scenario 1 waa labada time waa 1 hour iyo 15 minute kana maxaa weeye scenario 2 na maxaa weeye waa 15 minute kan cusub ee counter trendka soo jabiyey labada dhaqaaq ku soo jabiyey iyo counter trendka ku abuurmi doona ee 5 minute ka ee ku imanaya zoonkaaga cusub counter trendkan maxaan ka rabnaa waxaan ka rabnaa sidii 15 ka aan uga rabnay counter trendka in la jabiyo ayaan 5 minute kana counter trendkan in la jabiyo ka rabnaa isagana waa lagu jabiyey waa lagugu soo laabtay fursadaada halkanaa ka fulinaysaa waaye fursadaada bayga ee dambe ee scenario 2 ga halkanaa ka fulinaysaa micnaha guud hadda waa ila fahanteen soo ma sababta counter trendkan dambe 5 minute ka aan uga fiirsanaya maxay tahay waxaan doonayaa 5 minute counter trendkan soo laabtay isaga laftigiisu soo hoos uma jeedo soo sell maaha soo lower low iyo lower high samaysan maayo wuxuu awood u leeyahay dee inuu 15 minute uptrendkaagan kor u jeeda inuu cunubu awood u leeyahay 5 minute kan soo laabtay maxaan sugayaa marka isagana counter trendkan 5 minute ka hoos jeeda isagana maxaan sugayaa in sidii 15 minute ka aan u sugayo in laga jabiyo in isagana laga jabiyo jabintu maxaa micnaheedu tahay waa in laga istaajiyo qulqulkii suuqa ama sellerskii awoodda ku lahaa suuqa sababtoo aanu buyerskan la jiraayo fursadda baya inaan qaataan rabaa inaan baygareeyaan doonaya suuqa maadaamaan doonayo inaan suuqa baygareeyo waa in laga jabiyaa counter trendkan soo laabtay ee 5 minute ka ah marka lagaa jabiyo lagugu soo laabto fursadaada ayaad halkan ka qaadan doontaa waa ila fahantiin baan u malaynaya waaye scenario 1 marka labadee time baa la isla isticmaalayaa scenario 1 labadee time baa la isla isticmaalayaa scenario 1 waxaa la isla isticmaalayaa directional biaskaaga oo aad marka hore kusoo fiirsanayso 2 hour tusaale ahaan iyo waxaa isla isticmaalaysaa 15 minute waa scenario 1 weeye scenario maxaa isticmaalaysaa 2 hour iyo 15 minute time frame baa isla isticmaalaysaa scenario 2 waxaa isla isticmaalaysaa
scenario 2 waxay isla isticmaalaysaa 15 minute oo directional bias ka ku noqonaya iyo 5 minute way hal qodob marka iyo ku khaldin scenario 2 fursad ah oo qalalan kaligeed ma dhisi kartid marka hore waa inay ku dhisneed fursad scenario 1 ah oo lagugu laaban waayo intrigaagii fursad scenario 1 ah oo 2 hour iyo 15 minute ah ku dhistay oo counter trend break-gaagii lagu jabiyey oo lagugu laaban waayo intrigaagii kadib baa waxaad dhisanaysaa fursad scenario 2 oo 15 minute iyo 5 minute ah laakiin scenario 1 iyadoo waxay u baahan tahay 2 hour iyo 15 minute la isla isticmaashay way selkana suuqa down trend-kana waa sidaas oo kale waa inta in la mid ah counter trend-ku marka guud ahaan counter trend-ku macnihiisa guud muxuu yahay macnihiisa guud counter trend-gan waxa weeye suuqaani wuxuu samaysanayay impulsive iyo pullback impulsive iyo pullback iyo impulsive iyo pullback suuqu weligii ma uptrend buu ahaanayaa yom mar uun oo waqtiga ka mid ah wuu jabi doonaa sooma oo sel buu aadi doonaa sooma ya si aad waqtiga u jabi doono uusan u noqon waqtiga aad fursadda qaadan doontid inuu yahay in kale isaga ilaalisid maxaa counter trend-kan u isticmaalaysaa waxaa u isticmaalaysaa suuqan ma la jabin doonaa oo fursaddan counter trend-kan soo laabtay fursadda bayga ee guud ma jabin doonaa suuqu down trend ama sel ma isu bedeli doonaa mise isuma bedeli doono oo fursadda waa qaadan karaa intaasun baa counter trend-ka macnihiisu yahay jabintan aynu leenahay counter trend-ka halaynoo jabiyona macnaheedu waxa weeye qulqulkan selleriska suuqa ay soo wadaan ee soo laabtay ha layga istaajiyo oo selleriska ha laga awood bato oo buyersku awoodda suuqa ha la wareegeen way buyersku awoodda suuqa ha la wareegeen way waa fahamteen baan u malaynayaa way scenario 3 iyo scenario 4 ba iyaguna jira waa sharaxi doonaa laakiin sidii waxa weeye markii horeba aynu isla meel dhignay guud ahaan istiraatiijiyadan isticmaalayno shanteeda qodob aan isticmaalayno qodob aan u dul istaagnay iyadii jilcinay trades aynu ka qaadanay iyo waxa weeye trend area aan ka soo dirnay chartiskana aan in badan ku dul istaagno ku sharaxnay ayaan waxaan rabaa inaydin confuse ka qaadine scenario 2 aan casharka ku xiga ka dhigano waa kan scenario 2 markaan qaadano ayaan 3 iyo 4 u gudbaynaa istiraatiijiyadan aad bay powerful u tahay aadna waa u fududahay waxay u baahan tahay laakiin inaad waqti gelisid bay u baahan tahay inaad waqti gelisid bay u baahan tahay waxaan waqti la gelina dee lama helo waxaan time loo hurin oo waqti badan la gelinin dee lama helo way hadda fursado badan baan euro USD lacagta ugu badanaa ka trade garayno ka soo qaadanay usbuucii la soo dhaafay jihada guud ee suuqa lacagtan euro USD hadda dhowr lacagood baan rabnaa inaan isha isla marino jihadeeda guud 2 hour-ka markaan taaganahay waa uptrend waye oo muddo suuqu down trend-kii uu ku soo socday waa laynoo jabiyey ugu dambeyn lower lowgii ugu dambeeyay suuqu samaystay waa la jabiyey oo hadda awoodda suuqa waxaa la wareegay buyers ayaa la wareegay mar kasta oo suuqu sidan oo kale uu buy u yahayna waxaynu ka raadinaa fursado buy ah ayaynu ka raadinaa inagoo zoneskeena calaamadsanayna mar kasta oo suuqu zone inoo yimaadana fursadeena ayaynu ka raadsan doonaa insha Allah hadda zoneka ugu dhow aan isha ku hayn doono waa zonkan mar kasta oo suuqu zonkan yimaado waxaan ka raadinaynaa liquidity waxaan ka raadinaynaa counter trend break waxaan ka raadinaynaa manipulation inuu noo dhaco kadibna fursadeena waa fulin doonaa haddii fursadeena hadda tusaale ahaan lacagtan waa euro USD soma 15 minute counter trend bay ku soo socotaa 15 minute kan tago way waxaan soo socda aragtid waa counter trend zone-kaygii mee waa ii calaamadsan yahay waa kan sooma fursaddu markay soo laabatay iyadoo ordayso oo sellersku isagama soo yaacine muxuu suuqu soo ahaa impulsive buu samaysanayay uu nasanayay impulsive buu samaysanayay uu nasanayay impulsive buu samaysanayay uu nasanayay impulsive buu samaysan doonaa oo ku iman doonaa zone-keena
way dhaqaaqyadan marka waa counter trend dhaqaaqyadan uu suuqu samaysanayo waa counter trend keeni way waa counter trend keeni way sidaas uu ku iman doonaa zonka marka uu sidan ku yimaado zonkeenan suuqu ma jabin doonaa mise uu action buu ka samayn doonaayo waxa weeye fursadaheena bayda waa qaadan doonaa nobody knows cid garanaysa ma jirto laakiin inaad aadan godka ku dhicin oo stop losska lagaa garaacin waxa kuu fududaynaya qawaaniinta istiraatiijiyadda ee aad taqaanid qawaaniintaada ayaa ku fududaynaysa way si suuqan aan uga taxadaro inuunan stop losska halkaan markaan fursadda ka galo aan iska galo inuun stop losska layga garaacin si aan uga taxadaro waa inaan ka raadiyaa counter trendkani inuu iga jabo horta counter trendkani inuu iga jabo counter trendka inuu jabo micnaheedu waxay ka dhigan tahay suuqa buyerska la wareegayo sellersku ma sii socon doonaan wax no more sellers suuqa sii kaxayn doona iyo impulsive kale imaan doonaa ma jiro bay ka dhiganta hadda suuqu markuu day dhammaan impulsifyadan soo dhaqaaqay hal mid oo jabiyey kor u jabiyey ma jiro sooma hal lug ah day lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower high-yadan mid hal mid oo jabisay lower high-gii ka horreeyey ma jiro sidaa darteed micnaheedu maxay tahay waxa hadda suuqa maamulaya waxa weeye sellerska supply-ga ayaa mar walba suuqa maamulaya supplierska ayaa mar walba suuqa maamulaya si aan anigu marka maadaama aan doonayo inaan euro isdhibaygareeyo aan anigu ula wareego awoodda oo aan suuqii u baygarayn karo waa inaan dhahaa counter trendkani ha layga jabiyo oo ha layga istaajiyo qulqulka sellersku suuqa kusoo wadaan marka layga istaajiyo calaaduul intrigaaga halka meelahan ka samaysmi doonaa intrigaaga marka lagugu soo laabto fursaddii beeg ahayd oo qaadanaysa adiga oo targetkaagu noqon doono higher high-ga kuugu soo dhow ama zonka kuugu soo dhow way waa scenario 1 markan waa 2 hour iyo 15 minute 15 minute oo counter trendkayga ah hadda counter trendka meeshaan ka dhisay waa ujeedaan waa 15 minute baan tagay iyo 2 hour oo aan ku cabiranayo jihadada guud ee suuqa u socdo waa xagee ma buy ba mise waa sell baan kusoo xaqiijinaya horta suuqan lacagtan euro USD ma fursad buy baan ka raadin karaa mise fursad sell ah 2 hour baan kasoo xaqiijinaya trendy waxa uu yahay iyo sida loo samaysto iyo sida loo xaqiijiyo trendiga waxa soo dhana fiidiyowyadii hore aan duubay ayaan ku sharaxay way 15 minute na waxa weeye counter trendkaaga ayaad ka xaqiijin doontaa scenario 1 marka maxaa ku qaadanaysaa scenario 1 maxaa ku qaadanaysaa waxa ku qaadanaysaa in lagu jabiyo counter trendkaaga kadibna intriga lagugu soo laabto kadibna fursadaada bayga ah oo impulsive kan dheera ayaad raaci doonta way waa marka scenario 1 qaadanaysa scenario 2 waxay kaga duwan tahay oo kaliya iyadana liquidity waa soo heshay counter trend break-gaaga waa kan 15 minute scenario 2 maxaa samaynaysaa scenario 2 waxaa samaynaysaa maxaa lagu jabiyey counter trendkaagii baa lagu jabiyey maxaa sugaysa in lagugu soo laabto intrigaaga laguguma soo laabane higher high cusub baa la samaystay higher high cusub ayaa la samaystay halkaa markay marayso ma waxaa sugaysaa in halka lagugu soo laabto sidii tii hore scenario 1 oo kale maya ma sugaysid never sababtoo ah sabab maxaanan u sugayn ilaa waa inaa cilmi ku salaysaa sababta aad suuqa halka uga qaadanaysid oon halka uga qaadanayn maxay tahay dee suuqu higher high iyo higher low iyo higher high buu samaystay already haddii halka la soo jabiyo micnaheedu waxa weeye suuqu sellerskii baa la wareegay oo waa la soo jabiyey bullish up trendkayga cusbaaye 15 minute ka ahaa ii samaysmay waa la soo jabiyey weye haddii halka la yimaado ma doonayo marka in halka la yimaado waxaan doonayaa zoonkaaga cusub ee halka kaaga samaystay ayaa istaraatiijiyadaada ka dhisan doontaa simbali maxaa sugaysaa 15 minute up trend baa kuu samaysmay soo maaha hoos baa u degaysaa 5 minute kaa tegaysaa 5 minute counter trendkaaga halka ka dhisanaysaa 5 minute counter trendku markuu kuu yimaado intrigaaga baa sidii oo kale maxaa sugaysaa counter trendkaagan in lagaa jabiyo marka lagaa jabiyo maxaa sugaysaa in lagugu soo laabto meeshii kadibna halkaas fursadaada ka qaadanaysa
fursaddii aan halka ka qaadanaynay waxay u guurtay inaan halka ka qaadano sababtoo ah order flowga ayaa markasta imaamulaya order flowga suuqu meesha u jeedo ayaan aniga markasta u jihaysana hadda euro USD soo lacagtaa soconayso real marketka ama haddii ay sidaan samayso oo halkaan inta ii timaado kadibna counter trainkaygii lay jabiyo counter trainka dhaqaaqii jabiyo uusan kusoo laaban intrigayga impulsive kale sii samaysto oo trend cusub ii abuurmo fursadda halkaan kama qaadanayo halkaanaan ka qaadanaya laakiin haddii halka inta la jabiyo automatic iyadoo aan dhaqaaq kale oo kan inta nasasho la samaysto dhaqaaq kale oo higher high kale aanu keenin oo suuq automatic halka ugu soo laabto halkanaan fursad ka qaadan doonaa way waxaan u malaynayaa waa easy intaana waa ila fahanteen waxaan rabaa marka inaan idin tuso inta badan waxaan isticmaalnaa fibkaana isticmaalnaa tusaale ahaan fibkan hadduu suuqu higher loo samaysanayo waxaa saaranaysaa higher lowgaagii u dambeeyey iyo higher highgaagii u dambeeyey baa saaranaysaa way 0.75 meesha kuugu beegan ayaa markaa calaamadsanaysaa oo zoonka aad suuqa ku sugi doonto boosteejada aad hadhow suuqa ka raaci doonto kuu noqon doonta waxaan rabaa marka inaan tuso sittinka fibkan inaan intusaa rabaa sittinkiisa inaan intusaa rabaa marka hore automatic ahaan fibkaaga trading viewgaaga markaad joogtid waxaanoo dhan tig baa saarsaaran kulli tig baa saarsaaran tigtaan marka waa ka wada qaadaysaa kulli waa ka wada qaadaysaa waxaa keliya ku soo reebaysaa zeroga markaa ka tiriso extended lineska iyo waxaa iska daa zerogaagan markaa ka tiriso ka koowaad iyo ka labaad tigta waa ka qaadaysaa waa ka boodaysaa ka saddexaad oo zero kuu ah zero baa ku qoranaysaa tigta waa saaranaysaa ka afraad waa ka boodaysaa ka shanaadna waa ka boodaysaa ka lixaad baa tigta saaranaysaa oo 0.75 ka ku ah ka toddobaad waa ka boodaysaa ka sideedaad baa tigta saaranaysaa oo hal baa isagana ku qoranaysaa saddexdan tirana waa ku qoranaysaa saddexdaas aan idiin sheegina tigta waa saaranaysaa inta kalena tigta waa ka qaadaysaa waaya 0.75 ku muxuu inoo xaqiijiyaa marka guud ahaan waa golden zone waa meelsha ugu powerfulsan ee suuqu reaction ka samayn karo 0.75 meesha ku ah haddii ay zone kugu beegmato markaa waxa weeye diyaarso waxa weeye lacagta iyo lodki aa ku geli lahayd suuqaas yacni waa very powerful golden zone ayaa loo yaqaanaa waa meesha ugu fiican ee oo supply noqon karta ama demand noqon karta ama saylad noqon karta ee boosteeja tusaale ahaan suuqani dee wuxuu samaystay higher low iyo higher halkaasuu maraya tusaale ahaan 0.75 ka waa sayladii aad suuqan abtareenka ah ka baygarayn lahayd waa ku sugaysaa marka halkaasaa gambar gaaban ugu fadhiisanaysaa adiga maalinka suuqu halkaan yimaado haddii aad maalinta suuqu halkaa yimaado liquidityna aad heshid counter trend breakna laguu samaysto manipulationkaaga oo dhammaystiran saddexdii dhaqaaqa manipulationkaana ay ku samaysmaan waxa weeye tradekaasi 99 above percentage waa win ratekiisu aad buu u sarreeyaa waa golden zone aad muhiim u ah aadna ii anfacay adigana aad ku anfici doona marka sittinka fibka saasa isagana aad u habaysanaysaa way scenario 1 iyo scenario 2 in wax idinku dhiman yihiin u malayn maayo usbuucii lasoo dhaafay oo hadda dhammaaday tradeyo badan oo noocana baana soo maray kam intee fursadood ba aragteen oo inta counter trend break laguu sameeyey inta laguu sameeyey aan lagugu soo laaban meeshaynu ka sugaynay fursadda oo hore kasii dhaqaaqay aad bay u badnaayeen sooma meelaa kala qabsatona waa la ahayd sooma halkaan kala qabso marka hadda wixii ka dambeeya halkaan kala qabso mar kasta oo laba dhaqaaq lagu jabiyo laba dhaqaaq oo trend noqonayo oo 15 minute mar kasta lagu jabiyo counter trendkaaga
ka soo guur meeshii hore ee aad ku sugaysay trade-ka meeshii hore aad ku sugaysay oo islahayd adigu trade badan baa ku dhaafay suuqu iska soconaya macallin suuqu iska cararaya ma istaagayo ka soo guur meeshaan aad joogtid baa waxayna ahayn meel trade-ka laga filanaya aysan ahayn u soo guur trendiga labaad ee samaysmay la jaanqaad trendigan labaad ee samaysmay la jaanqaad zoonkiisa cusub samayso counter trend break-gaaga 15 minute ka dhig labada time frame isla isticmaalaysa scenario 2 waxa weeye 15 minute oo directional bias-kaagana oo trendigan cusub ee kuu samaysmay weeye 15 minute kaagu ee counter trend-kaaga kuu jabiyey iyo 5 minute oo counter trend-kaaga maxaan ka rabaa in isagana hadhow la jabiyo lagu soo laabto intrigaygii kadibna fursadeeda halkaasaan ka qaadanaya laakiin scenario 1 waa tii guud oo aynu naqaanay iyadu waa 2 hour iyo 15 minute in automatic lagu jabiyo automatically lagu soo laabto weeye no more dhaqaaq oo aan ka doonayo scenario 1 ma jiro waa in inta hal mar lagu jabiyo counter trend-kaaga isla one time lagugu soo laabto intrigaaga way scenario 2 marka scenario 2 iyada gaarkeeda uma dhisi kartid waa inuu jiray markii hore scenario 2 inta aadan dhisan waa inuu jiray markii hore scenario 1 kugu laaban weyday intrigaaga waa inay jirtay way isku hoos jiraan marka scenario 1 ayaa waxay dhashay scenario 2 dhalaysa aduu scenario 2 marka qalalan oo cidlo taala iska samaysan ilaa iyo sug inta scenario 1 ay ku dhalayso scenario 2 ama waxa helaysaa trade scenario 1 ah ama waxa helaysaa trade scenario 1 ay ku dhasho oo scenario 2 ah marna trade ahaan mise dadiga lacagtu macallin way iga tagtay oo intrigayga igu soo laaban weyday waxa soo dambe ma jiraan marka waxaan rajaynayaa inaad casharkan si fiican u fahantaan isagoo real marketana waxa weeye casharaan idinka soo duubaya tusaalayaal cadcadna waxa weeye waa idinka siin doonaa waxaan rajaynayaa usbuucyada soo socda tradeskii aa qaadanaysay usbuucyadii lasoo dhaafay inaad ka badan heli doonto insha allahu tacaala sababtoo hadda maxaa haysataa laba model ama laba scenario oo trade graysid ayaa haysataa marka scenario 3 casharkooda iyo scenario 4 casharkooda qaadataanna waxaan rajaynayaa suuqa inaad ku raaxaysan doontaan kana adkaan doontaan waa salaamantiin dhammaantiin saaxiib yaal intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu